waxa wali muran xoogan uu ka taagan yahay qabashada banaanbaxa looga soo horjeedo xukuumadda Muuse Biixi kaas oo lagu wado inay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland. xisbiyada mucaaradka ayaa ku baaqay inay 11 bishan oo bari ku beegan ay banaanbax ka dhigi doonaan gudaha magaalada deegaanada Soomaaliland, balse xukuumadda ayaa ka dalbatay inay ka hor banaanbaxa ay kulan degdeg ah iskugu yimaadaan labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda. wajiga koobaad ayaa shalay ka furmay magaalada Hargeysa iyagoo la isku afgartay in mucaaradka banaanbaxa u qabsadaan si ay ku dheehan tahay deegaanasho ciidamadana amnigooda ay sugaan. wajiga labaad ee wadahadalada xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ka furmay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Hargeysa. kulanka waxaa goobjoog ka ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo kaliya. warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay diideen inay ka qayb galaan kulamadan muhiimka ah. gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xasan iyo musharax xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo guud ahaan xisbiga wadani